inay khaatimadu xumaato waxyaabaha keena waxaa ka mid ah taswiifu tawba addoonku inuu yahay mid ilaahay caasiyo subxaana wa tacaala haddana aanu toobad keenayno toobadii dib uu dhigaayo oo uu yahay addoonku mid ku qarqoomo dhinac walba ay ka martay macaasida shahawaadka iyo shubahaadkaba li mar kastoo la waaniyo ladha waar ilaahay usoo noqo ilaahay u toobad keenna wuxuu leeyahy berri baan toobad keeni doonaa waxaan toobad keeni doonaa berri maalinta ku xigta taasina waa sheekada iyo maaweelada nafta waayo xaqiiqadu waxay tahay miyuu jiraa qof og berri toole inuu noolaan doono waa dacwa nafsi sida aimada qaarkood ay yidhaahdeen raxmatullaahi caleyh markaasaa qofkii isagoo macsiyadii samaynaya weli aan ka toobad keenin ayaa malakul mawtku u dhawaaqaya uu qabanaya nafti baa laga qabanaya markaasaa addoonku wuxuu bilaabayaa inuu ka murugoodo maalmahaasi uu dayace uu toobad keeni waayey markaasaa wuxuu leeyahy rabbi irjicuun ilaahu dib ii celi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jawaabayaa kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu baaqay in fara badan inaynu maalin kasta ilaahay u toobad keenno wuxuu leeyahy saxaabiga la dhaha al-akhir almuzani qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaasu tuubuu ila allah waardadow ilaahay u toobad keena fa innii atuubu fi lyawmi mi'ata mara ilaahay waxaan u toobad keenaa maalintii 100 jeer waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal xaalka nebi maxamed aynu ku cibro qaadanno maalintii 100 jeer buu toobad keenayaa nebi maxamed iyadoo ilaahay uu doortay darajo sare u yeelay dembigiisana ilaahay subxaana wa tacaala uu dhaafay waxaa ka mid a waxyaabaha sababa qofka inay khaatimadu ka xumaato cadamu alistiqaama wa xubu almacsiya addoonku inaanu toosnaan macsiyadana waxa weeyaan uu jecel yahay oo addoonku haddii uu toosnaado inay khaatimadiisa hagaagayso ilaahay nooga warramay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun kuwa ilaahay rumeeyey ee toosnaaday macsiyada iyo mukhaalafaadka iska ilaaliyey marka geeridu ay ka baxayso malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa malaa'igtaas waxay ugu bushaaraynayaan inay heli doonaan wixii loo ballan qaadi jiray waxaa malaa'igtaasi ay ugu bushaaraynayaan inay yihiin kuwa u dhow oo shaydaan xaaladda aanu ka agdhowayn khaatimada wanaagsan seejiya oo garab mariya waxaa walaalayaal asbaabta ka mid a tuulu lamali wa nisyaanu lmowt qofku inuu rajada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraysto oo uu isu arkay inuu yahay mid adduunyadan muddo dheer ku noolaanaya oo iyaduna u fikiraya aakhire iyo geerida iyo dhimashadana uu iska ilaabo arrinta caynkaasi sababba u noqotay in badan oo khalqiga ka midii inay noloshoodu guuldarro ay ku dhammaato wuxuu odhan jiray cali bin abi taalib radia allahu canhu waxa ugu daranaan idinka baqaya waa 2 arrimood waa itibaacu alhawa wa tuulu lamal inaad hawadiina raacdaan waayo qofku hawadiisa hadduu raaco taasi waxay ka hor istaagaysaa inuu xaqii raaco xaqii oo u cad oo u arko ayaanu dheg u dhigahayn inuu qofku rajada iyo ididiilada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraystaana waxa ay kalifaysaa inuu aakhire iska ilaabo qofku mar hadduu aakhire iska ilaabana inuu khayr iyo taacaad iyo wanaag sameeyo way ku adkaanaysaa inuu sharka iyo xumaanta ka dheeraadaana waxa ay noqonaysaa mid aad ugu adag xumaantuna way u fududaanaysaa camalka wanaagsanna wuu ka caajisaya sidaa awgeed addoonka ilaahay shar uu la doono waxaa lagu ciqaabaa bay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa 4 arrimood inay indhihiisu qalalaan oo weligii ilaahay daraaddii aanu u ooyin iyo inuu qalbigiisu qalalo iyo inuu noqdo mid adduunyadanun isku ilaaba iyadana dadaalkiisa oo dhan ku bixiya waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keentay inay khaatimadu xumaato suxbatu alashraar dadka xunxun in lala saaxiibo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi xadiidka saxiixa ah alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diin iyo la dhaqan noqonayaa cidda uu la saaxiibo midkiin ha ka fiirsado oo aad ha u hubsado cidda uu la saaxiibayo waxaa kaloo rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofku cidda uu jeclaadee uu la saaxiibown inuu meel la tegi doono yowma alqiyaama oo anta maca man axbabta buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saaxiibkuna saaxiibkiisa raad weyn buu ku leeyahay